walaal waxay u dhaceen anoo dukaankayga ka tagay oo carruurtayda wata ayaa qolada arxan laawayaasha waxay igu xabadeeyeen meeshantan hadda ka dambaysa anoo kala wareegay gaariga rifaas raba inaan u qaado ay igu qabteen dabadeed waxay ugu dhifteen 2 xabadood alxamdulillah ilaaha ku mahadsan waxaan uga fakaday xagahayga oo waan ka dhax baxay markii 2 xabadood igu dhifteen dhaawacna iga soo gaaray anoo dhaawaca ayaan la baxsaday carruurtaydii deedna markaan gurigii tagay ka bacdaan isbitaal aaday alxamdulillah ilaaha ku mahadsan magacaygu waa Saara Cabdullaahi Jimcaale degan wadanka Koonfur Afrika special magaaladiisa Cape Town waxaan ahay ganacsatada Soomaaliyeed ee degan Koonfur Afrika kana ganacsada ganacsiyada Soomaalida ay u badan yihiin sida raashinka dukaanleyda ah waxaan deganahay meeshan hadda liigu dhaawacay habeen dhaweyto muddo ah 14 sanadood alxamdulillah ilaah baa ku mahadsan 14 sano way jiraan wax dhac badan oo naloo geystay oo mar iyo 2 iyo 3 aan ahayn laakiin maalin dhaweyd ka hor wax dhaawac ah igamay soo gaarin aniga shakhsi ahaantayda alxamdulillah wax walba waxay dhacaan saacadii rabbi ugu talagalay xiran yihiin dadkaas alxamdulillah ilaah baa ku mahadsan way xiran yihiin dadkaas waxaan rajaynayaa in haddii ay leedahay wadanka Koonfur Afrika uu cadaalad u leeyahay inaan cadaalad aan aniga ayagu aan isla tagno 2 nin oo dambiilayaasha oo 2 xabadood ugu dhifteen